guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinkaga mahad celinayaa kalsoonidii buuxda ee aad siiseen golaha wasiirada cusub iyo barnaamijka xukuumadda waxaan rabaa halkan inaan ku xuso kalsoonidii ay siiseen kalfadhigii kan ka horreeyey ee ra'iisul wasaarenimada inaad ii siiseen si buuxda aad ayaan ugu farxay oo qofna uga harin maantana sidoo kale ayaan idinkaga mahad celinayaa sida buuxda aad u taageerteen inkastoo uu dalku galay xilli doorasho haddana golaha wasiirada cusub waxaa hor yaalla dardargelinta howlaha wasaaradaha iyo kamari dhalinta barnaamijka xukuumadda waxaan eebba uga baryayaa subxaanahu wa tacaala in uu u fududeeyo gudashada howlahooda mudanayaal iyo marwooyin waxaan hortiina kula dardaarmayaa golaha wasiirada inay ka dhabeeyaan xaqiijiyaanna hanka ummadda Soomaaliyeed u qabaan dawladda ku shaqaysa sarreynta sharciga kana turjumaan rabitaanka shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo ugu dambeyn waxaan fursaddan uga faa'iideysanayaa codsi ku socda qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed in ay taageeraan lana shaqeeyaan hay'adaha dawladda guud ahaan gaar ahaan kuwa amniga sidoo kale waxaan ka codsanayaa dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka in ay si degdeg ah u soo dhameystiraan soo gudbintii xubnaha u matalaya guddiyada doorashooyinka ilaaliyaana qoondada haweenka meel kastoo Soomaaliya joogto ay ga soo wacayeen dumarka Soomaaliyeed iyagoo codsanaya in la ilaaliyo qoondooyinka haweenka Soomaaliyeed waad mahadsantihiin wabillahi tawfiiq